السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadceliyo shacabka reer Somaliland ee ku dhaqan dalkan Britain sidii qiimaha iyo qaayaha lahayd ee ay halkan ugu soo dhaweeyeen wafdigii Somaliland ee hoggaamiyay madaxweyne Axmed Maxamed Siinayo aad iyo aad baan arrintaa uga mahadcelinayaa marka ugu horeysa. waxaan kaloo mahadcelinayaa saaxiibada Somaliland ku leedahay dalkan Ingiriiska oo fara badan dalashooyin kala gedisan leh. waxaan kaloo mahadcelinayaa dowladda Ingiriiska British government sida wanaagsan ee ay nooga shaqeyso shacabka iyo xukuumadda Somaliland uga shaqeyso sidii wanaagsan ee noogu soo dhaweystay dalkan Ingiriiska iyo wada hadalladii nuxurka wanaagsan lahaa ee aan halkan intii aan joognay la yeelanay hadday tahay dowladda hadday tahay baarlamaanka iyo hadday tahay hay'adaha kale ee qaranka ee dalka Ingiriiska intii aan la joognay aad iyo aad baan waa ka tagnay stage-kii walaalayaal sida laga warqabo Somaliland muddadii 19 sannadood ahayd ay jirtay waxay ku tallaabsatay oo ay gaadhay guulo waaweyn oo dhaxalgala. guulahaasi waxaa ka mid ah nabadgelyo, waxaa ka mid ah degenaansho, waxaa ka mid ah dimuqraadiyad, waxaa ka mid ah dowlad wanaag, waxaa ka mid ah shacab u hoggaansan in ay qarankooda ilaashadaan. Somaliland waxay leedahay hay'ado qaran oo cod iyo vote-ka shacabka reer Somaliland lagu doortay. waxay leedahay golayaal iyo xeerar iyo qaynuun kala haga ee shacab ahaan iyo xukuumad ahaan iyo dal ahaan kala haga. Somaliland waxay leedahay saxaafad xor ah oo u hoggaansan qaynuunka laakiin xor ah. Somaliland waxay leedahay ciidan xudud xoog la ku ilaaliyo nabadgelyadeeda gudaha iyo dibadda intaba. guulahaasi waa guulo waaweyn, waa guulo lagu yaqaano dowladaha horumaray iyo dowladaha ku dhaqma nidaamka dimuqraadiyadda, kala dambeynta iyo ilaalinta xuquuqda insaanka. waana arrin aad iyo aad shacabka reer Somaliland arrintaasi waxaa guusheeda iyo karaamadeeda iyo sharafteeda bale marka ugu horeysa shacabka reer Somaliland baa marka ugu horeysa. guulahaasina waxay salka ku hayaan oo ay ka yimaadeen halgan dheer oo shacabkan iyo qarankan u soo galay nabadgelyadiisa iyo gobonnimadiisa